aynu halkaas uga soo gudubno waxaan kusoo laabanayaa saaxiibada cabdi axmed cabdilaahi iyo xamse maxamed kuul oo arrimaha doorashada soomaaliya waayahan aada moodo sida midda kenya ay ula socdaan si lamid ay ula socdaan horta doorashooyinka soomaaliya waayahan abdeed baa ka timaan u leenahay labadiina كل ورت أنا وحن كسر كوبي كرا وحن كبقى ماركتي إن كويرة فوق لكن وحن كسر كوبي كرا وحد مدة ماركتي إن حضرتن بريشة أي ماركتي ضدك سامنت السياسة ده كل هذا الكسوماليا بريشة يكوها يعني دولة فدرالك أما أنا راه هذا إيفن ماركتي قديها لو حل ساري إن أي أرنتن ميل مريان أي واحد مدة إني ميران الله سبته haddii maaragtay kuraasta la cancel gareeyay ma waxay dhalin doontaa in maaragtay si cadaalad ama si maaragtay free wax maaragtay lagu sameeyo waa su'aal for tomorrow laakiin sidoo kale waxaad moodaa pia cabsida maaragtay in murashaxiinta ay yiraahdeen may waan ku gacan sayrena the whole process in arrintan dhalisana kole way tahay yes xamsay adrus labadan kursi oo run ahaantii fiidka ay sheegeen in lagu celin doono waxay dhalin doontaa run ahaantii xiisada hadda taagan inay hoos u dhigto waxay sidoo kale macnaha u yeelaysaa in cabashadii midowga murashaxiinta ay tahay in sidoo kale la tixgeliyo cabashadoodii oo run ahaantii ra'iisul wasaaraha mar walba ula tageen sidoo kale waxay dignin u tahay maamul goboleedyada oo ah in kursi walba oo sida saxda ah loo maareynin ama sharciga doorashooyinka aan soo marin aysan fiid mar waliba aysan tixgelin doonin aysan aqoonsan doonin taas marka waxay ka dhigaysaa in maamul goboleedyada mar dambe ay maxaan ku yiraahdaa ay iska ilaaliyaan hadda qaar ka mid ah kuraasta lagu soo celiyay waxa la leeyahay maysan buuxinin shuruudihii doorashooyinka ama shuruudihii murashaxnimada marka waa un digniin la siinayo run ahaantii in maamul goboleedyada doorashooyinka maamulaya inay ka fogaadaan maxaan ku yiraahdaa in ay noocaasi u maamulaan sidoo kale waxay sidoo kale walaac iyo khalkhal gelin kartaa qaar ka mid ah kuraasta run ahaantii oo weli aan la sheegin laakiin oo la sheegayo in la boobay ayaa iyagana waxaa laga yaabaa in dabagal hor leh lagu sii sameeyo oo doorashada lagu soo celiyo tan marka waxaa laga yaabaa in ay dejiso fikradii ahayd in run ahaantii doorashada ay boob ku socoto haddii qaabka ay fiidka u wadaan si hufnaan looga hortago kuraasta sida khaldan ama cabashooyin ay ugu imaato ama odayaal dhaqameedka qabiilka ay ka keenaan cabashooyin in si sax ah looga laabto si doorashada isagoo qabiil walba uu uu ku qanacsan yahay qaabka ay doorashooyinka u dhaceen midowga murashaxiintana waxaa laga yaabaa in arintani ay xiisadooda iyo debka badan laga yaabaa inay hoos u dhigto dabcan markaan fiirino kursiga ugu horeysay ee xildhibaanada golaha shacabka waxaa loo doortay mahdi maxamed guuleed khadar oo ra-iisul wasaare ku-xigeenka ah dabcan dood baa ka daba timid waa tii dib loo dhigay sax ahaanshiyihiisa dabcan guddiga xalinta khilaafaadka ayaa la wareegay muddo kadib waa tii la ogolaaday oo la meelmariyay xuseen carab ciise sidaas ayuu ku haray jawaari oo dacwooday guddigan dacwasho u gudbiyay guddigan uu ku dhawaaqay in la joojiyay ayuu koonfurta bad ku dhaga adeegtay inay qabato way qabatay jawaari isagoo aan qanacsanayn buu xamar ku laabtay maanta war baa ka daba yimid dabcan sareedo oo iyadana dabcan xildhibaan kasoo jeeda koonfurta bad ah waxaa xoogaa aada loo saluugsan yahay qofka la tartamayay qof runtii dood badan ay ka daba taagan tahay weye waxaa la eegayaa haddiiba ay dhacday in dib loogu celiyay kuraastan ma sida mucaaradka iyo jawaari iyo shakhsiyaad kale ay rabeen bay noqonaysaa bas wixii dhacun baa dhacaya maxay kula tahay wallahi run ahaantii horta aniga ahaan markaan qiimeeyo dhinacayda ama ra'yigayda ka hadlo kuraastaasi waxba iskama bedeli doonto wayna soo laaban doonaan sida un bay kusoo noqon doontaa jawaari waxaa lagu eedeeyey inuusan xitaa isaga usan diiwaan gelininba sidoo kale odayaashii maxaan ku yiraahdaa beeshiis ka soo jeeday way diiday in kursiga loo xiro jawaarina wuxuu doonayay in kursiga loo xiro marka aniga sida ay la tahay iyo aragtidayda waxaan baahay tahay in kuraastaasi isla the same people ay kusoo noqon doonaan kuraasta sida ay tahay laakiin hadda waxaan baahay tahay in la qanciyo dadka cabashada qaba in doorashooyinka si hufan macnaha loo wado laakiin dabcan mucaaradka Soomaaliya kulama ayaa uga socday magaalada Muqdisho wajigi labaad baa maalmo ka hor bilowda u maleynaya arrimaha doorashada uu quseeyay hadiiba cabashadooda iyo dareenkooda iyo diidmadooda ay ahayd kuraasta qaar natiijadooda hadii dib lagu celiyo go'aamadoodii wax ma ku bedelaysaa taas horta hadii ay isku dayaan inay macnaha mar labaad dhaliilaan oo iyagu looga celiyay kulli macna weyn ma bedelayso run ahaantii midowga murashaxiinta dhamaantoodna
iskuma raacsana qaabka ay u doonayaan in wax loo maareeyo qaar ka mid ah murashaxiinta waxay doonayaan in doorashada ay sii socoto wixii khaladaad jirana la saxo ayay qabaan qaarna waxay leeyihiin in gabi ahaanba la joojiyo marka waxba iskama bedeli doonto oo waxna uma soo kordhin doonto haddii ay nimankani soo laabtaan taas micnaheeda waxay ka tahay annaga dadkaan rabnay haddaysan soo baxin doorasho ma saxanayso taasna waa waxa waa impossible أنا حمزة sidoo kale maaragtay su-aasha meesha ku jirta waxay tahay waxaad moodaa in lagu heshiiyey ka hor sanadkan intuusan dhammaanin in la soo afjaro maaragtay doorashooyinka you know inkastoo maaragtay ay salka ku hayso maaragtay fikradaha masiixiga laakiin waxaa inta badan caalamka laga yiraahdaa 10 maalmood ugu horeeyo December haddaadna wax ku qaban karin waa inaad dib u dhigtid ilaa sanadka cusub marka adigu ma kula tahay inay doorashada up until end of this year ay ku dhamaan karaan maya loo maleynaayo markii hore waxaa la asteeyay in 20 bishan ay la soo gabagabeyn doono u maleeyo doorashooyinka Soomaaliya meelahaas bay ahayd laakiin hadda qaabka ay wax u socdaan waxa uu isla gaari doona u maleeyo ilaa January laakiin doorashada maadaama qaar ka mid ah maamul goboleedyada wali aysan bilaabin Jubbaland iyo Puntland haddana si kaftan ahaan waxaan ku dari karaa mooyta dadkan maaragtay doorashada yani observers ka oo maaragtay reer galbeedka kormeerayaasha Christmas waxaan u soconaa anaka dameesha ma bajooyi karno inaba ujeedka ugu weyn December dhamaadkeeda loogu qabto doorashada xildhibaanada golaha shacabka soo gabagabay madaxweynaha inta dhici kan cid kasta og malaha waa January wixii ka dambeeyay laakiin hadiiba December ay ku soo gabagabowday doorashada golaha shacabka malaha 22na meel fog bay gaaraysaa walaynaya in soo gabagabay cabdi wallahi waa ingiriisiga wuxuu ku tilmaamaa uncharted territories yani waa maaragtay jid aan weli hadda ka hor la qaadin bal meesha maaragtay laga soo noqdo ama wixii la kulmo waa un laga warsugi doonaa ninkii dani ahaa booq ka weyn baa ku furan doorashada oo arrintii boosaaso weli xal waa loo laayahay BSF-ta markii awood uu ku suuragelin waayo inuu ku furfuro hadda waxay wadaad wada hadal iyo xoogaa farsamo inay socoto dani doorashada wax uga muhiimsan ba hadda maanta Puntland ka haysta fadhiga kana run ahaantii dadka arrimaha ka faalooda waxay leeyihiin dani wuxuu ka leeyahay qorshe daahson arrimahan boosaaso run ahaantii maadaama doorashooyinkiina ay micnaha bilowdeen laba maamul deegaana laga bilaabay sida saddexda maamul goboleed ay qorshahooda u saas yahay waxay leeyihiin asaga iyo madoobe waxay doonayaan in hal maamul goboleed macnaha hal magaalo lagu soo celiyo deegaan doorashada waan ognahay madoobe inay ka haysato dhinacaasi Garbaharey inuusan doonaynin in halkaas doorasho lagu qabto marka dani iyo madoobe haday micnaha sidii mataamo u ahaayeen horaanba ay dhahan boosaaso anaga doorasho kuma qaban karno maadaama ay xiisado ka taagan tahay garowgan doonayna dadka marka arrimaha ka faalooda waxay leeyihiin dani qorshihiisa wuxuu yahay in uu garowga ku qabto doorashada dhamaanteed uu halkaasi wixii ka dhacay doorashadii aqalka sare oo kale ay halkaas ka dhacaan sidoo kale Kismaayo adiga waa qorshe ay macnaha isla qorsheeyeen oo iyaga wataan laakiin u maleyn maayo inay macnaha suurta gali doonto maadaama maamul goboleedyada qaar ay bilaabeen in doorashooyinka laba deegaan doorasho laga dhigo waa maasantihiin halkaas inuu gudbeyna arrimaha doorashada Soomaaliya wixii ku soo kordhay Cabdi markale noo sheegi doona